shir jaraa'id oo magaalada Muqdisho ku qabtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayuu kaga hadlay xaaladda dalka iyo xanibaadii shalay Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya ay ku xayirtay magaalada Muqdisho dowladda Soomaaliya wuxuuna ku tilmaamay Xasan Sheekh mid aanan raad ku lahayn shuruucda iyo dastuurka waddanka u yaala aad iyo aad ayaan mar kale waxaan uga xunnahay wixii shalay dhacay madaxweyne Sheekh Shariif waxa lagu sameeyay astaan iyo fariin ay dadka Soomaaliyeed oo dhan u tahay qof kasto Soomaali ah oo muwaadin caadi ah muxuu fili karaa marka odayaashii qaranka ee dalkani asiga oo 22 sano marna dawlad aan ahay marna dawlad ku meel gaar ah ka soo saaray iyo kuwii ka dambeeyay dawladnimadii xamar iyo iskool booliisiyo ku koobneeday inta baahiyay jamhuuriyadda Afrikada gees geeyay haddii aanay dawladnimada dhexdeeda ixtiraam ku lahayn muwaadinka caadiga ah iyo hooyada caadiga ah suuqa bakaaraha yaanyada ku gadanayso ama suuq bacaad maxaan ku yiraahdaa mooska ku gadanayo maxay sugayaan war rajo xumaad wadaan rajo xumada Joojiya Xasan Sheekh ayaa ka dhawaajiyay haddii dawladda Soomaaliya ay sii wado xanibaadda ay sababi doonto sida uu hadalka u dhigay burbur ku yimaada dawladnimada hadda jirta wuxuuna ka dhawaajiyay in hoggaanka dalka ay hayaan wadooyinkii horay lagu soo hingoobay sida uu sheegay Xasan Sheekh dawladda federaalka ah iyo hoggaankeedu xukuumadda iyo madaxweynaha oo shacabku ay doorteenba sida ay wax ku wadaan sax ma ahan wadadaas inay bedelaan wadada ay hayaan meel xun ay ku dhamaataa qar dheer ay ka dhacdaa oon laga soo noqon karin way aragnimo u leenahay waa soo joogna dalkan 30 sano dawlad la'aanta ayaan soo joognay wixii dhacay oo dhan shalay sida noogu muuqdaan wali ka joog hadda adigu ka maqnaydeen dalka oo dhan jooginina war annaga soo joogna wadadii lagu dhumay waa wadadan ha qaadinina ka leexda dadka ka daaya maraga iyo cunaqabateynta iyo dhibka dadka ka daaya tahdiidka iyo maxaan ku raada xorriyadda dadkani waa dul qaateen waxa ay maanta u dul qaateen wax badan oo kamid ah looma dul qaadanin shalay laakiin maanta dadka maadaama dhibaato soo arko laakiin wax walba xaday leeyahay xadkiya laga bixin rabaa ka bixinina hogaamiyaha xisbiga nabadda iyo horumarka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hoosta ka xariiqay in hogaamiyayaasha dawladda aanan lagu aamini karin masiirka dalka iyo ummadda Soomaaliyeed waxaana uu sheegay in ay baal mareen shuruucda hanaanka dawladeed sida uu hadalka u dhigay dawladdaani ifafaalaha ka muuqday waa inay dastuurkan ixtiraam u haynin dastuurka hadaan ixtiraam u haynin termkan ixtiraam u mahayso waxaan u sheegaynaa in termka hadduu dhammaado uu dhammaaday waxyaabaha hadaaqa oo laga dhex sheegayo ayaga iyo waqti badan isaga dhumin Soomaaliya waa ka timiday meeshii qofka rabitaankiisa ku shaqeyn jirtay dadkuna waa ka yimaadeen oo rabitaankooda ayagoo ku shaqeyn kara rabitaankooda meel iska soo dhigay Abdicasiis Ibrahim Axmed TV Universal magaalada Muqdisho